بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس وزراء xildhibaanada labada gole inta nagala joogta madaxweynayaasha dowladgoboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed marti sharafta mudanayaal marweyn assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidii habsamida lahayd ee aad nogala soo qayb gasheen shirka wada tashiga ahaa ee maalmahan inoo socday. maanta waxaan u fadhinaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno waxyaabaha ka soo baxay wada tashigii aan isugu nimid. waxaan isugu nimid inaan tashanno, waxaan isugu nimid inaan mas'uuliyadda iyo xilka ay nasaaran oo ummadda naga sugayaan aan u fulino ama u gudano si waafaqsan danaha dalka, dadka iyo diinta. marxaladda aan haatan aan ku sugannahay inooma saamaxayso kala qaybsanaan, kalsooni darro iyo kala shaki. dalkani maanta wuxuu nooga baahan yahay badbaado. dadkeeduna waxay naga dhowrayaan ama naga sugayaan inaan ku hogaaminno waddo saxa. sidaas darteed waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno, waxaan ku heshiinay inaan is-aaminno oo aan ka wada shaqayno sidii loo ciribtiri lahaa kuwa shacabkeenna maalin walba xasuuqaya oo ay ugu dambaysay falalkii bahalnimada lahaa ee waxashnimada lahayd ay ka geysteen Zoobe iyo Naasahlood. musiibadaani waxay soo jirtay muddo 10 sano ah. sanad walba iyo maalin walba bil walbana waxay naga leynayeen ama naga xasuuqayeen shacabkeen iyagoo dhan marna u abayeelin inuu shacabkaasi ay yihiin dad shaqaalaha iyo dawlad. waxay muujisay inay cadow ku yihiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. waxay naga laayeen dad aad iyo aad u fara badan. musiibadii Oktoobar 14keedii runtii waana wada taabatay bacdama ay laayeen hal goob ay ku laayeen dad gaaray 400 dad 400 kor u dhaafayna ku dhaawaceen. waa xaqiiqo, waa culays iyo musiibo aad iyo aad u xun oo kulligeen na wada kicisay oo na wada taabatay. laakiin inta ay nagu sameynayeen wax sahlan ma ahayn. markaan maalan ka soo qaadano sanadkii la soo dhaafay ee 2016 waxay geysteen 50 wax kor u dhaafayo qaraxyo ah. waxay laayeen oo sida ay u laayeen kuwii hadda ugu dambeeyay musiibooyinka ugu dambeeyay ku laayeen dad gaaraya 1000. haddana istaagi maayaan haddaynan u istaagin oo aynan ka hor imaan ka dowlad ahaan iyo shacab ahaan. sida hadda ka muuqata fadhigeenna iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo oo musiibadii dhacday yaa waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo sida ay nooga go'an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii soconno. laakiin intaas kuma filna. waxaan doonaynaa inaan u turjunno ficil oo aan fulino qorshaha amniga oo aan dhigannay iyo midka siyaasadda si aan u horumarino dhaqaalaha dalka. qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxda dalka ah aan isla qaadanay istaraatiijiyad iyo qorshe midaysan, iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan, garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga frontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka dalka. dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha weli gacanta ugu jira shabaab. hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo gabdhaha ku jira frontiyada dagaalka. culimada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugaynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena Soomaaliyeed oo muslimiinta ah ayna caddeeyaan in al-shabaab aysan diin shaqo ku lahayn. abwaaniinta iyo suugaanada ama fanaaniinta waxaan ka rabnaa inay bulshada gubaabiyaan. guud ahaan qof walba waa inuu kaalintiisa ka soo dhalaalo. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.